السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago dhowr shay. Midda ugu horeeyo waxaan ku tilmaamayaa suurad mucjizo ah maalmihii ugu dambeeyay aan ku akhrinayo walaalo fara badan. waxay soo saartay xanuuno badan oo qarsoonaa. waxay aad iyo aad matag iyo shuban ay ku waashay dadkii sixirku hayay. waxay caafisay ummadii xanuunada la ildarnayd. suurad soo saari doonto jirkaaga sixir hadduu ku jiro ku qarsoon yahay waa hubaal ilaahay idinkii. isha dadka waaweyn, maamooyinka iyo odayaasha, ama afka aad ku taagtay, ama kartiyaada la yaabay, ama adoo yar maxay ahayd aad ku afcelisay oo jirkaaga ku jirto, ama dadka dhintay ishooda, suuraddaasi ilaahay idinka way soo saari doontaa. iyo xanuunadan xasadka noocooda dhanba, sidoo kale jibanka noocooda kala gedisan, kuwooda ugu daran maarid iyo carfiid, suuraddaasi way gubaysaa haddaad labadan shay samaysay. suuraddu waa suuratu saafaat. suuratu saafaat laga bilaabo acuudu billahi min ashaytaan rajiim, bismi illaahi raxmaan raxiim, wasaafaati safan ilaa wa xifda min kulli shaytaanin maarid. intaas haddaad ku celceliso muddo oo aad u samirto, مثال هل ساعة لبا ساعة، horta intaas waxay qeexayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxay ka hadlayaan yani ilaahay oo ka dhaaranayo tawxiidkii iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala jibanka kuwooda inkirsan inuu ilaahay jiro. ina ilaahakum la waaxid ayaad ugu celcelinaysaa. ina ilaahakum la waaxid, ina ilaahakum la waaxid. intaas ilaa wa xifda min kulli shaytaanin maarid waxay u guban doonaan oo ay u baabi'i doontaa wasaafaati safa fazaajiraati zajran. aayadahaasaad ku celcelinaysaa. haddii aad heli karto suuraddood tikraarana samee insha allahu tacaala. waxaan kugula talinayaa sidoo kale markaad marayso ilaa cajuuzan fi lghaabiriin, beejka ugu dambeeya aayadda markaad maraysana aad baad ugu celcelinaysaa. isha dadka waaweyn ee jirkaaga ku jirto, ee lafaha kaa gashay, ee adoo yar ku asiibtay, ama hooyada caana ku siinaysa adoo yaro qurux badan babacooda kugu dhacday, way soo saari doontaa. waa ku baryaa qof walbo xanuunsan oo fahmi la xanuunkiisa gaarsii, ilaahay idinka ku caafimaadaya. waa suuratu saafaat midda koowaad. midda labaad, walaalkayga muslimka oo walaasheeda muslimada bishan barakaysan ka faa'iidayso. nebiga sala allahu calay wasalam wuxuu dhahay qofku markuu sooman yahay ducadiisu waa mustajaabo, khaasatan laba xilli, markuu afarku soo dhow yahay iyo qofku markuu afuro ducada waa mustajaabo. suuradda qofku yaqaano biyo soo qaado, ku tufo, biyaha ku afur, ku qubayso, aad uga dherig. qof kasta oo dhiban, midka guur laga haysto, midka jibanka khaa'imintu ay dhibayaan, reeraha kala tegayo, dhibaatooyinka carruurta haysata, wax kasta oo jirkaaga ku jira ilaahay iidanka way kaa soo saaraysa. ilaahayna gacmaha u taago labada xilli. ilaahay u taag gacmaha, ilaahay gacmaha u taag oo ilaahay bari. bishaa barakaysan isku day jirkaaga intuu ilaahay cadowga garbaduubka uu kaaga hayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala yani bishaa barakaysan ilaa adoo caafimaad qaba mahan inaad ilaahay wax kale ka rajeyn. gacmaha ilaahay wax badan u taag xilligaad afurayso iyo markaad afurto iyo markaad suxuuranayso. xilliyadaa ilaahay aad buu u fadilay. wa bilasxaari hum yastakfiruun. waa xilligu ilaahay xilliga la suxuuranaya. ilaahay aad u bari, ducooyinka mustajaabada ilaahay aad ugu bari. allahuma inaa cabduka ibnu cabdika. ducada nabi sal slam qof ilaahay kuma baryo addoon ama addoon ilaa ilaahay farajkiisa waa faydaa, farxadna waa ugu bedelaa. haddaad suuradda akhrido oo ducooyinka akhridid oo xilliyada ilaahay baridid, waxaad sugayso waa inuu ilahay dhibta kaa qaado, uuna ilaahay wuu kaa qaadi doonaa. bishaa barakaysan inta cadow garbaduur lagaaga hayo oo shaydaanka ilaahay kaa hayo, carar oo istaawe oo ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaro oo hor u soco. intaas waa talo qalbiga meesha ugu naxariista badan ka soo baxday, walaalkiin idin jecel idinkaga soo baxday. wallaahi hooyooyin fara badanoo halkan in qur-aan ku saaray suuradda waan ku celceliyey oo ku celceliyey oo ku celceliyey oo ku celceliyey. matag bay ku waasheen, matag bay ku waasheen. aayad kale idinla wadaagi doonaa insha allahu tacaala. laakiin suuratu saafaat dhulkay la sintay. qodobka ugu dambeeyaan kusoo gabagabaynayo 3 shay baan kula dardaarmaya. midda koowaad waa cusbada. meeshaad ka helaysa raadso. haddaadan helaynin mumkin dhib ma leh, cusbada caadiga ee milxul baxrida waaweyn cagaha ku shubo. miski asu intaad ku qasto cagaha ku shubo. suuradda saafaat dhageyso.
وكو هبينكي كل سحر كو قبيس اوكي سورة بيات كو اخردي كل قبيس لمبر تري qofka helaya inta badan dadka xanuunada ruuxiga qabo timahooda aad bay u daataan saliidda ku soo baxday aad baa loo mahadiyay timaha ayay aad ugu wanaagsan tahay qofkii timaha laga hayo saliiddaas meeshaad ka helaysaba raadso khaasatan online kaad ka heli doontaa linkigan hoos baan soo saari doonaa insha allahu tacaala midda saddexaad waa shifo saliidda ayadan hadda kuu soo baxday hurdada iyo dadka habeenkii hurdada ka soo sasa iyo dadka korka xanuuno iyo dadka maxay ahayday markii subax ay soo kacaan iyagoo daalan intaba ilaahay idinku ka zuulin doona ballankeenu waa suuratu saafaat oo aad ku xiriirayso bishan barakaysan ee xilliyada mustajaabada ducada ay tahay oo ilaahay aad u barido allah ku aqbalo waa idin jecelahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh